imsa dhalinyaro maanta shaqeeya $500 buu qaataa guriga waxba kama cuno hodheelada u qaalisan buu tagaa dharka u qaalisan buu soo iibsadaa hooyadii iyo aabiina shilin uma dhiibo inta badan habluhu markay hooyooyin noqdaan bay gartaan hooyooyinkood waxay la soo mareen inamadu si talo goormay garan doonaan xanuun iyo culays iyo tacbaan iyo dhibaato iyo soo jeed iyo seexin iyo naasiin iyo maydhid iyo nadiifin maxaad ahayd adigu eesh kunta imikaad naga daada ahayd saad afka taagaysa maxaad ahayd markaad dhalatay sidaad ahayd adoo sidee adoo qaaban baad soo dhalatay iyadaa maryaa kugu qabatay iyadaa ku nadiifisay iyadaa naaska ku siisay iyadaa habeenkii kuu soo jeeda habeen oo dhan baad qaaqda haysa imikana qaaq baad hooyada ka horgeynaysaa weli qaaqdii baad haysaa goormay qaaqdaadu dhammaan doonta awlaadda waxyaabaha fasaahadinaya in laga ilaaliyaa waajiba waalidka mas-uuliyad baa ka saaran gaar ahaan intaanay qaan gaadhin isaga ayaa la weydiinaya waa inuu salaada faro wixii xunna waa inuu ka ilaaliyo waad ogtiin xasan ibnu cali oo ilmo yara ayaa timirtii sadaqada xabad ka mida markuu afka geliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi kakhin tuf markuu tufi waayena afka intuu farta ka geliyey buu kasoo tuuray marka wixii xaaraana caruurta in laga celiya waa mas-uuliyadii waajib saaran waalidka wixii diintoodii akhlaaqdooda fasaahadinaya sida moobiladan iyagoon yaryar oon isba xakamayn karin oon ismaamuuli karin loo iibinaya gacanta laga gelinayaana iyaduna waajib wey waalidku isagaa u sallaxaya ilmihiisu wuxuu ku fasahaadi lahaa haddana isagaa necab inuu fasahaado oo inuu hagaagana jecel wax isqabanaya maaha arrimahaaga dhinac u wada jeedi ilmahaaga hagaagiisana ka shaqee arrintaa asbaabteedana la kaalay ilmuhu marka uu qaan gaadho dee isagaa wax loo qorayaa waxna laga qoraya oo qalinkii kor looga hayay baa lagu sii daynaya marka isaga waajib ku tahay wixii fara lahaa inuu guto wixii xaraan inuu iska daayo waalidka iyo dadka kaleba waxa uga furan waa alamru macruuf nahy can lmunkar waajib ka saara wixii wanaaga inay faraan wixii xumaanana waa inay ka reebaan inta iyagu hadday gutaan dee waxaa khaladaadka isagu ku jiro isagay u taallaa waa inuu ogaado haddiise waalidku marka hore uu tarbiyadiisa ka gaabiyey oo tarbiyad xumadii waxaa saabtay dee ama uu isagu tusaale ugu noqdayba waxaa xun halkaasaa waalidka uu dembi kala soconaya awlaaddana ilaahay noo islaaxiyo awlaaddu waalidkood waa inay maqlaan so ilaahay muu odhan waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayn ixsaana tawxiidkii iyo ilaahay keliyeyntiisii iyo in kelidii la caabudaa lagu xigsiiyey labada waalid in wanaag lagula dhaqmo biru lwaalidayni waa waajib cuquuqu lwaalidayni muxaram xaqoodana lama dhamayn karo nebigu wuxuu sheegay xaqooda marka quree la gudi karaa inay tahay iyagoo cid addooma waa inaad hesho ood xorayso wax kastoo kaloo aad samayso xaqooda kuma gudi karti ibnu cabaas radi allahu canhu nin baa la kulmay hooyadii xambaarsan oo kacbada kula dawaafaya oo weliba markaa ku geeraaraya hadal muujinaya sida hooyadii waxa weeyaan uu ugu samafalayo oo ay ka mid ahayd inii ana laha albaciiru lmudallalu in udcirat rikaabuhaa lam udcari anugu hooyada waxaanu ahay gaadiidka hayinka ah biyo madaadshaha baanu ah haddii waxa weeyaan gaadiidada dada kale ay wataan ay didaan oo dee ciddii saarayd ay tuuraan ama ay halis geliyaan anuu mar haddaan hooyada xambaarsanahay wax kasta oo dhaca dhaqdhaqaaqi maayo ninkaasaa su-aal weydiiyey cabdullahi ibnu cabaas oo ku yidhi ka waran ma umalaynaysa xaqeedii inaan guday xaqeedee buu ihi xaqeedee hal waxa weeyaan nabar oo ka mida nabaradii qabtay markay ku foolanaysay waxa aad samaynayso dhan uma dhigan inta badan habluhu markay hooyooyin noqdaan bay gartaan hooyooyinkood waxay la soo mareen inamadu si talo goormay garan doonaan ya hooyooyinkood waxay la soo mareen aabbuhuna waalidka waa la mid xaqa hooyadu biriga iyo samafalka ku leeday baa ka weyn ka aabbuhu ku leeyahy sababtuna waa maxay dhibka ay kaa soo martay baa ka weyn ka aabbaha kaa soo maray kuwa aabbuhu kaa soo maray xanuun iyo culays iyo tacbaan iyo dhibaato iyo soo jeed iyo seexin iyo naasiin iyo maydhid iyo nadiifin maxaad ahayd adigu eesh kunta
imikaad naga daada ahayd sadaafka taagaysa maxaad ahayd markaad dhalatay sidaad ahayd adoo sidee adoo qaaban baad soo dhalatay iyadaa maryaa kugu qabatay iyadaa ku nadiifisay iyadaa naaska ku siisay iyadaa habeenkii kuu soo jeeda habeen oo dhan baad qaaqda haysa imikana qaaq baad hooyada ka horgeynaysaa weli qaaqdii baad haysaa goormay qaaqdaadu dhammaan doonta waa ceeb wey iyo foolxumo ogow adduun iyo aakhiratoona liibaani maysa haddaad caaqul waalideyn noqoto xuquuqul waalideynku waa maxay waalidkaa inaad wixii wanaaga ku adeecda waajib wey waajib inaad u khidmayso aad u adeegtaa waa waajib ku saaran inaad waalidkaa haba shaqaysan kara ee wuxuu kaaga maarmo haddaanu hayn inaad adigu waxaad hayso aada siisaa oo aada biilisaa waajib ku saaran wey imsaa dhalinyaro maanta shaqeeya $500 buu qaataa guriga waxba kama cuno hodheelada u qaalisan buu tagaa dharka u qaalisan buu soo iibsadaa hooyadii iyo aabiina shilin uma dhiibo kaanamaa in naftiisa uu loo korinayay kaanamaa in naftiisa loo korinayay baad moodaa oo la yidhi adigu un bal isku filow bal qaarkood xataa iskumay filaan oo weli waalidkood bay culays ku hayneen dhibaato waan tahriibayaba odhanayaa intuu afka taago markaasuu tahriibayaa markaasuu naftiisiina dhibaya waalidkiina dhibaya inkaar buu shaqaysanaya waalidka hadal fiican waa inaad ku tidhaahdo waqul lahumaa qawlan kariima hadalka u fiican waalidka waa inaad ku tidhaahdo weji furan hee hooyo hee aabo macaan macaane hadal fiican way ku farxaan qalbigooda waa inaad ilaaliso waxay dhibsana waa inaad ka ilaaliso waxay ku farxayaan wanaagsaneyn dembi aan ahayn waa inaad samayso waa haddaad doonaysa adduuniya aakhiraba inaad ku liibaanto dii kale adduuniya aakhiratoona ku liibaani maysa kuwada adigu dhashaana sida xunad waalidka la dhaqantay bay kula dhaqmi doonaan asmaci wuxuu yidhi waxaan tegay miyiga imaam luqawiya buu ahaa luqada carbeed aada u yaqaan cilmigeedana ururiya si aan reer miyiga luqada carbeed uga soo ururiyo waxaan la kulmay buu ihi nin odayo oo raran wuu raray sida awrka oo kale loo raray nin dhalinyarabaa shaabug buu la daba socdaa weliba uu garaacaya ninkii baan canaantay buu war maxaa kugu dhacay waxay odayga weyn aad rartay haddana aad sidan ula dhaqmaysaa intuu qosle buu ihi maca daalika waa abi ku darso waa aabbahay laa ilaaha illa waa qof naxariistii iyo dadnimadii ay ka dhamaatay wey markaasaa wuxuu ku yidhi waxaad ogaataa ninkii baa wuxuu yidhi laakiin waxba hala yaabin kadalika kaana yafcalu maca abiihi wuxuu isagu sii dhigtay weeye aabbihii buu sidan ula dhaqmi jiray siduu aabbihii ula dhaqmi jiray unba anigana iga helay taasoo adduunyadii maaha ciqaabka adduunyo iyo ka aakhiro labadaba waalidkoo lagu xumaadaa lagu hadal xumaado lagu ficil xumaado lagu arag eegis xumaado lagu aadaab xumaadaa way sababtaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma jiraan laba dembi oo ka mudan in qofka loogu soo dedejiyo ciqaabka adduunyada waxa aakhiro lagu kaydiyey marka laga yimaado labadaa dembi waa maxay albagyu waalcuquuq waa tacadiga xadgudubka iyo dulmiga dadka lagu sameeyo iyo alcuquuq waalidkoo lagu xumaado oo baari loo noqon waayo markaa tasha adigu labada taa doonayso dooro in ciqaabka ilaahay adduunka uu kugu soo degdego aakhirana isagoo kugu sugaya iyo inaad noqoto qof waalidkii ka ducaysta ka farxiya ducaa waalidna waa mustajaab hadduu ku habaaro iyo haddii uu wanaag kugu duceeyaba walihaada baa waalidka nebigu u sheegay inaanay awlaadooda habaarin laa tadcu calaa anfusikum walaa calaa awlaadikum walaa calaa amwaalikum waayo saacatu ijaaba in la kulantaan baa dhici karta oo hadhowaad ka murugootaan buuhi nebigu waa waalidun isagoo ku habaaray habaarkii hadduu kugu dhaco haddana wuu dhibaya isaga marka waalidkaa ka ducayso wanaag kula dhaqan xaqa uu kugu leeyahay si fiican u garo haddaad doonayso inaad diin ahaan iyo adduunya ahaan if iyo aakhiro inaad liibaanto oo aada guulaysato ilahayna awlaadeenna ha waafajiyo taas iyo awlaad lmuslimiin bir waalidiin ilahay ha waafajiyo qulubtooda ilahay ha geliyo waalidkaana ogow waa waalidkaa waxa uu kuu sheegayaa oo wax dantaadu ay ku jirto hadday tahay arrin diineed salaad la tukado iyo cibaado iyo khayr uu kuu kicinayo iyo hadday tahay tale adduunyo waxa weeyaan ku siinayo
waalidku waa qofka qura jecel inaad isaga ka sarreyso cid kaloo jecel inaad ka sarreyso ma jirto waalidka uma jecel inaad isaga aad ka sarreyso ood ka kormarto ma qofkaas aad u malaynaysaa wuxuu inuu kugula talinayo waa shay naadira waalid xun oo dee awlaadiisa xumaan faraya waa la arki karaa laakiin waalid waxaa asalo ah isagoon salaada tukan buu ilmihiisa odhanaya salaada tukan isagoon diin dhiganayn buu inay diinta dhigtaan uu kula dadaalaya isagoo isagu daroogada isticmaalayu awlaadiisu inay daroogada isticmaalaan uu ka xumaanaya uu dhibsanaya waalidku waa qofka isagoo isagu xun haddana jecel ilmihiisu inuu hagaago qofkaasaa qof la caasi ah ilahayna waafaji wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم